18 mas oo sun leh iyo tiro badan oo abeesooyin oo ayaguna sun leh 18 mas oo sunta leh halkii mas caalamku wuxuu ka joogaa $200,000 dhagaxa laga mariyo diyaaradaha afkooda madow oo ugu horeeya la mariyo maraakiibtana afkooda oo xariiqin laga mariyo oo markabku markuu badda jiirahayo buuraha dhan ay ka kala yaacayaan abeesadu adiga $60,000 bay noocyadeeda sunta loo joogaan caalamku waa naga gurtaa wuxuuna kaga ganacsadaa 4 nooc. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الملك تكتبه ولكن كما يرى محمد نورة وحرب ما تينا تفافله مقال كانت صدى وتين أديننا هي مدة صوماليات من كسوا كده يعنها نفط النادي وضيعنتها وما أنت واحد كده كما نعندل يرى صوماليات أو أما سوت الريبي أما ظروف فايسته سيا يجب حان الجرنين أنت أنا واحد بدي أبياشو دي أو يالكود دول كان نجي سيدا ولاد كانوا شاقي khayraadkiisii waa la iska daldalanayaa adiguna kama warqabtid anna kama warqabo meel yar baan kaaga soo qabanayaa badda Soomaaliya waxa ilaaliya ciidamo shisheeye hal askari oo Soomaaliyeed ma dhex taagna waxa ay sameynayaan maanta cid warka haysa ma jirto qashinkii bay ku daadiyeen iyo kiimikadii kalluunkii bay daldalanayaan way xaalufinayaan naxariisu ma jirto oo naxariisan maayo macnaha wuxuu sameynayaa wax baylaha wixii lagu sameeyay adiguba maanta wadada maraya haddaad hanti dhulka daadsan aragtid kama aad tagteen asaguna sidaas si leeg wixii asaga anfacaya ayuu ninka shisheeye qaadanaya inta kalena si aan dadku ugu nacfin ayuu u sii ciribtaraya uma malaynaya maanta qof Soomaaliyeed oo ku fakaraya ciidamadaas badda ilaalinaya ayaa wax wanaagsan sameynaya uma jiro okay aanu ka soo gudubno annagoo sidaa u dayacan oo naftanadii dayacan tahay oo qaar ninka la yiraahdo la qarxinayo qaar tahriib ku dhibaataysan yihiin qaar qurbi stress ku haysto qaar darbi jiif ay yihiin qaar noloshii ciriiri ku tahay hantida nadiina la daldalanayo oo u jeedaan wadaadkan wuxuu ka hadlayo ayaan anaguna waxaan isku haynaa qabiil hebel baa taa qabiil hebel waxa laga yaabaa warmaalin dhow daawanaya galgaduud baraag laba qabiil oo isku dagaasho oo 20 wiil uga dhimatay hadda waa baraag meel laga qoday aqligu halka oo jooga fiiri waa baraag meel laga qoday wadaadkan wuxuu sheegaya dhageyso wuxuu ku leeyahay xayawaanka noo jooga ee Soomaaliya sidaad aragteen u buuxa baadiya aad tagtid abeesada wadaadkan sheega dad baadiya lugtaada saa u saartid waxa laga yaabaa 5 jeer 6 jeer inaad raadkeeda aragtid ayuu hamiinka meesha ku miratay masasku kaba daran annagoo khayraadka leh oo maanta khayraadkaas hadaynu soo saarnay kulligan aan dhacdidu jiifsanayno oo aynu dhargayno ayaynu baraag qarax iyo rafaad lagu qoday isku haysanaa wanu leenahay reebel ayaa baraagnaga qotay aqliga anagu Soomaali hadaynu horta halkaas u jooga sideen uga gudbi karnaa marka wadaadkaanu qudbadiisu horta waa dheereed Soomaaliya wada qaadan waxa ku jiray 150 sano ayaa ummadda Soomaaliyeed qabiil loo kala qaybinayay dadba waxay moodaan qabiilku dawladii Maxamed Siyaad Barre kadib inuu imaaday xaasha qabiilku dawladii Maxamed Siyaad Barre ka hor waa jiray kana waa Rashiid kana waa Sharmaake meed shiribkii nimanka afgaal tiriyeen macnaha qabiilku illa Talyaani naga baxay illa Talyaani joogay waa jiray sideen uga gudubnaa marka waxaan qurunka waa nala haray wuxuu maraa maanta inaan adduunkii ka dambayno maanta qofka Soomaaliga ahu xayaata kuma noola maanta qofka Soomaaliga ahu asagay la tahay ma ahane wax xayaata kuma noola meesha rabti joog xayaata kuma noolid gobonimo kuma noolid meesha rabti joog Mareykan joog Soomaaliya joog Yurub joog wax xayaataad ku nooshahay mala laakiin adaa iska dhaadhiciyay doqon baa tahay adduunkuna waysan ku sheegayn ma ahane doqon bay ku haystaan dhulkaadii oo saasa oo khayraadku saa u buuxo ayaad ka baahan tahay annagii marka qabiil baan isku kala qaybinaynaa wadaadkan wuxuu ka dhawaajiyay khayraadka wadanka ku jira hadii la soo saaro qabiilka waa laga gudbaa xaasha ruuxana misanahay khayraadkaas intuu dadan yahay nabad jirta maanta dadka barkad isku dagaala oo taagan barkadaan dhulkayga ka qodatay iyo dhulkayga ka qotay isku dagaalaya ee 20 wiil iskaga dilaya xaad u malaynaysaa marka khayraad hadii la soo dhaxdhigo hadii la yiraahdo ceelka shidaalka ee halka laga qodo waa in ka dhaxeeya way ku baabaayaan
eber bay iskaga dhigayaan arrinkan marka waa in xal loo helaa dawlad kasta oo timaada si dhaba uma wajahda qabyaaladda inay la dagaasho waxaa ugu sokeeyey dawladdii maxamed siyaad barre ee qabiilka inta yaabta soomaalida ka dhamay weysay iskugu wacda soomaalida ee tiri bal niyad ahaan dadkan bil qalbiyahan qabiilka ma uga tirtiri kartaa maalin ba inta iskugu wada citro dhageysta qabiilka waynu duugaynaa maantaynu duugaynaa maxaa siyaad barre xariifo wuxuu yiri qabiilka maantaynu duugaynaa xaflada loo dhigay ummadii Soomaaliyeed iskugu timid maracad cala ninka la yiraahdo geeda lagu duwalay god baa la galiyay qabiilka waa inuu duugnay baa la yiri hadda waa wax runayn waxaan qalbiga jirin way arrinkan marka anigu laba qodob baan dadka Soomaaliyeed kula tali lahaa war qabiilkaanu waana wareeriyay dawlad la'aanna waana dhigay seen uga gudubnaa aynu dhahnaan isku imaanno annagoo kala qabiila aanu wada noolaanno waaye annagoo kala qabiila oo aynu oginayno kala qabiilnahay oo ogahay inaad dhinac hebel tahay oo ogahay inaad reer hebel tahay walaal waa wada noolaanno aynu nabad wada qaadanno aynu isdayno dadka Soomaaliyeed anigu waxaan aaminsanahay dawladaha imaanaya isbabadalaya meesha nabadda ay ka raadinayaan uma jirto waxay nabaddu jirtaa dadka hubka dhigis lagu sameeyo xitaa mamnuuc laga dhigo toorayda in la qaato iska badaa in qori la qaato ama bustoolad la qaatee toorayda in la qaato in mamnuuc laga dhigo marka qabiil ku duulaya ma jiro haddii budlo iskula duulana waxba haraya oo bud baaragtay dhaawacba u geysanaa ma ahana dhimasho geysan maayo ummadda Soomaaliyeed marka marxaladan aynu ku jirno annagoo qabiilka ah horta waa marxalad badan si looga gudbaana waa adag tahay anigu arrinaan ka dhawaajiyay oo ahay war qabiilka aynu ka gudubno oo kun dhalinyaro ah oo miirmiira oo markii wiilal baa dhaa laakiin gadaal markaan ka fakiray wiilal iyo gabdhaba leh ilaa gabdhaha qaar wadaniyaal ku jira oo wiilasha ka indheer garatan oo ka aqli badan baa ku jira wiilal iyo gabdhaba leh oo Soomaaliyeed oo la wiisiteeyo qofkaan la kacinaysan aynu dadka Soomaaliyeed ka soo xulno roob baa igu daaya codkayga hadduu si fiican idiin soo gaari waayo iga raali ahaada arrinkii dad badan baa ka soo falceliyay dad aad u tiro badan oo Soomaaliyeed oo wadaniyaala ilaa maanta dad bay soo wacaya taagan war arrinka waxaad afka ka tiriyood ka tagtay oo noqon arrinka dhiirigelin baynu siinaynaa dad baa taagan aan ka codsanayaa dad wadani Soomaaliyeed tahay sheekadaanu qof kasto Soomaaliyeed waa qusaydaa sheer garay garuubada ku sheer garay live-ka kici meel fog gaarsii sida dalkaadi uga jiifatay oo dantaadi uga jiifatay inta daawatida ka gudbine walaal waxaan ka codsanayaa waxaan ka hadlayno waa masiirka nagiye walaalow sheer garay oo meel fog gaarsii hadda intan ku jeedo dad badan baa ila soo xariiray ilaa maanta dadku way ila soo xariirayaan qofba waxba ku sheegaya aniguna raay aruurin baan wadaa waxaan ku tala jiraa 10 qofood oo koobaad ama 100 qof oo koobaad inaanu group u sameeyo wada hadalna aynu wada yeelano adinkuna aad marqaati ka noqotiin oo ama live screen aan soo galno ama ninka la yiraahdo muuqaal kaga soo diyaariyo deetana falcelinta dadkaas qaabkay u falcelinayaan inaynu aragno adigana waxaan ka codsanayaa qof kasto Soomaaliyeed horta waa wadani dadka waynu kala shaandhaynaynaa shuruudaha jira waxaa jira interview baa jira si aan qofka u ogaano sababtoo ah qof kasta oo Soomaaliyeed maanta dad la sheekaysatid qabiil ma rabo haddana inuu ka gudbo ma doonayo macnaha waxyaalaha la yaabanay kamita qofkaanu ma doonayo qabiil oo qalbigu ka nacab yahay haddana inuu ka taga ma rabo la ka ugu badan marka dadka waynu kala shaandhaynaynaa waxa ka codsanayaa marka barnaamijka oo ku soo xasuusinaya walaalkay Soomaaliyeedow sheer garay barnaamijkan qof kasta Soomaaliyeed waa qusaya barnaamijkii dad aad u tiro badan ay la soo xiriiray waxaan doonayaa muuqaal inaan ka soo sameeyo dadkan aan shuru qabanno aynu qorino qof wariba oo maantay dadka anfacaya inaynu yeelano team meelaha baraha bulshada ka hadla oo dadkan qaaqlayaasha aan dhaga tiray oo inkaarta qaba aynu ka awood badino oo anagu meesha awood ku yeelano miidiyaha waxaynu sheegno inay socdaan ayaynu doonaynaa hada hadalka u fiirso dadka maantay miidiyu wuxuu noqday dagaal buu noqday sagal laftirkiisu hubba uu noqday la adeegsan karo hadii si fiican miidiya dadka Soomaaliyeed ku jira caanka u adeegsadaan wallahi wax badan bay ku bedeli karaan waad ogeydeen dawladdan ka horeeyay miidiya ayaa dadka laga waalay hadii marka miidiya anagu laga ololeeyo oo dad Soomaaliyeed wadaniyaal laga helo
wax badan baa isbedelaya. waxaan kaa codsanaya aduu haddaad taqaanid dadka baraha bulshada ka qayliyo qof ka mida bal inuu qalbigiisu qoyan yahay barnaamijka ku taageeray. ma raba inaan ka baxo mashruucaygii barnaamijkii waa socdaa dadkii Soomaaliyeed badankoodii way la soo xariireen qeyr la siiyo WhatsApp halka kor ku qoran dadka badankoodii la soo xariireen wiilal iyo gabdhaba waa leeyihiin waxa maanta naga go'an oo qaasatan anigoo barnaamijka soo jeediyay iga go'an inaan barnaamijka ka dhabeeyo dadka Soomaaliyeed bal horta culka waraf ma lagu dayay aynu isku dayno inaynu dhanka ka bedelno oo wiilasha iyo gabdhahaasu aynu shir qabsano oo dadka Soomaaliyeed dad wadaaganaga ay dhageystaan oo xitaa halka aynu ka bilowno qof waliba maalin ciwaan loo sameeyo ciwaankiisana la kiciyo loo gaarsiiyo ama 50,000 ama in ka badan oo maalin kasta qof la shaqeeyo adinkana waxaan ka codsanayaa inaad garab istaagtaan qof kastoo Soomaaliyeed arrinkan waa quseeya nolosha aynu ku noolnahay ee xayaata kalabka inaynu ka baxnaynu doonayna hadaynu Soomaalinahay waad cuntaa waad cabtaa waad soo kacdaa laakiin aqligaadu uma fakaro dhulkaadii maxaa ka jira sideed u nooshahay wariyaan la waardiyeynaya tahay baddaadii ciidamo sheeyaa jooga dhulkaadii ciidamo sheeyaa jooga waxay sameynayaan ma taqaanid waxaan anigu maanta ogahay wadan adigu ogayn 10 sano kadib intaasoo kun oo ciyaal oo Kenyaatigaas iyo Ugandaiskaas oo ka dhaleen gabdhahanaga inay dhulkanaga ku noolaa doonaan oo aan baasaboor sii doontid ilaa gabdhahanagiiba wax uga faa'iideysanayaan daruuftii hadduu rabo wuu xoogaya hadduu rabo lacag buu siinaya saw rabo ula dhaqmaya dhulkii marka saabo ku socdaa waxaan qof ajaanib ah nala jooga noloshanadiiba waardiyeynaya hadaayow ka waardiyeynaya qofka ajaanibka ma isweydiiday wuxuu ka waardiyeynaya qofka ajaanibka walaal Soomaaliyeed oo kale adigoo Soomaaliya iyo anoo Soomaaliya ayaa Afrikaankaasu na kala waardiyeynaya haddii waad ka aqli badan tahay waad ka aqoon badan tahay waad ka Soomaali jeceshahay wax kasta waad ka jeceshahay waad ka wadanaysan tahay haddana aniga adiga iyo isfaamila ninka baa nagu kala dhex jira wana kala ilaalinaya aqli ma ahan marka sidaasu ina anagiina la kala waardiyeeyo oo mashruuc lagu la qaato waynu diidanahay si aan marka arrinkan u hirgelino oo aynu dadka Soomaaliyeed balaan isku dayno inaan qalbiyadooda bedelno wacyi gelin badan sameeyno tiimkaas baynu sameeynaa qabyaaladiid baa la yiraa ama qarandoon baa la yiraa magaca waynu wada bixi doonaa adaa soo bixi doona laakiin waa inaanu marka hore aynu dhaqan gelino barnaamijkaas waxaan ka codsanaya adiga daawanaya barnaamijkeena sheergareysid waxaa socda hadda qoritaankiisa socda arrinkaana waynu ka dhabaynaynaa adiguna waxaad nagu dhiirigelisaa falowga iyo sharta iyo laagta nagu dhiirigeli qof kastoo Soomaaliyeed oo wadaniya oo qalbigiisu oo jilicsan yahay barnaamijkan waa u furan yahay meesha rabti joog Soomaaliya joog Afrikada kale joog meesha rabti joog anaga waxa noo muhiima aqligaada ayaa noo muhiim inuu yahay qof nadiif ah oo qabiil nadiif ka aad iyo aad baad maasantiin muuqaalka xiga intaynu ku kulmayno waa Kabayar Maxamed Nuur Roodin leh war magaciina jire barnaamijka sheer gareeyo walaalihiin gaarsiiya anigu maalin dhaweed godob baan ka tirsanayay afareey baan soo wadaa afareedu maxay leedahay dad iyo qaab daradiina muddo waan qarsanayay qalad aad u ballaaran iyo qadaf bay ga gasheen qaniisiin kuwa sheegta mid qabiil ku hadaaqa mid qafiifaya waashay islaantii qalabkeeda marba qayb ka banaysay intaasoo qarafjaan oo dhaqankii qaribaysa luuqa baad u gashaan oo comment aad u qortaan anna way qadiseen gartiina qaatade oo barnaamijka sheer gareeya